al-shabaab oo tan iyo bilowgoodii dalkan ka geystay gaboodfallo waaweyn oo ay ku nafwaayeen boqolaal kun oo dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan ayaa hadda wajahaya maalmahoodii gabagabada kadib kacdoonkii bulshada ay soo bilowday dabayaaqadii 2022 wax kasta oo aan isticmaali karno iyo cid kasta oo aan kaashanayna nimanka khawaarijtaasi aan dalka ku saaro war Soomaaliya oo khawaarij la'aan ahaan rabnaa waxaan warbixinno taxanaha ku eegi doonaa mahadhooyinka iyo gaboodfallada ay geysteen kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab tan iyo bilowgoodii bilowga soo idbaxa kooxda khawaarijta ee al-shabaab waxay la soo baxeen dhagarro iyo shirqoolle ay ku ugaarsanayeen saraakiisha aqoon-yahanada iyo indheergaradka ama hormuudka bulshada si loo waayo cid ujoodkooda guracan ummadda u iftiimisa waxaana magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ay ka bilaabeen dilal gaadmo ah oo badankood lala eeganayay saraakiisha ciidanka qalabka sida qof kasta oo ka mida dadka Soomaaliyeed oo lagu tirin karo xigmad ama aqoon waxa uu ahaa mid ku jira listiga khawaarijta waxayna go'aankoodu ugu weyn u ahaa in marka hore bulshada indhaha la tiro kadibna xoog lagu qabsado sanadkii 2000 ilaa 2006 oo ay bannaanka kooxaan ugu soo baxeen waxa ay dalkan ka geysteen dilal iyo beegsi tirabeela oo ka dhacaya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kuwaas oo lagu khaarijiyey saraakiil ciidan aqoon-yahanno iyo qaybaha kale ee bulshada waxa uu ahaa warka ugu weyn ee warbaahinta ku soo laalaabta maleeshiyaad hubaysan oo aan haybtooda la garan ayaa dilay sarkaal hebel ama aqoon-yahan hebel kuwaas oo baxsaday dilka kadib saraakiisha la xusuusto oo ay shirqoollada ku dileen iyagoo aan shaqo hayn ama qaarkood u adeegaya bulshada waxaa ka mid ah jenaraal maxamed cabdi maxamed xoogga dalka jenaraal yuusuf axmed sirinle booliska jenaraal axmed jilacow cadow nabad sugidda jenaraal cabdulqaadir yuusuf kaariye owliyo asluubta jenaraal cabdi kaahiye faarax xarag shabeel booliska korneel maxamed cismaan coon xoogga dalka korneel xirsi maxamed cumar dhoorre xoogga dalka gaashaanla sare faarax cabdulle siyaad garam iyo saraakiil kale sidoo kale shirqoollada kale ee lamaylabaanka oo ay khawaarijtu geysteen soo ifbaxoodii ka hor waxaa ka mid ah dilalka aqoon-yahanada iyadoo la wada xusuusto dilka arxandarrada ah ee ay hooygiisa ugu geysteen allaha u naxariistee cabdulqaadir yaxye cali oo ahaa madacii hay-adda CRD iyadoo dilkaasina ay uga gol lahaayeen inay ku hor istaagaan dhaqdhaqaaqyada bulshada rayidka isla markaana ku aamusiyaan aqoon-yahanka bartilmaameedsiga shirqool ee khawaarijtu ma ahayn mid kala sooc leh wuxuuna ahaa mid ku wajahan qof kasta oo bulshada qiimo ku dhex sida aan ka arki karno toogashooyin isku nuuc ah oo sannado kala duwan cadowgu ay u geysteen khadiibkii masjidka abu hurayra axmed moomin haaruun afhayeenkii midowgii ganacsatada gobolka banaadir cabbaas maxamed ducaale oo labaduba wax saamayn ahan ku lahayn siyaasad iyo dagaallo intaba iyo shakhsiyaad kale oo muhiim u ahaa bulshada mahadhooyinkaas xanuunka badan ee khawaarijtu ay geysanayeen oo markaas isqarinaya ayaa waxay keentay in bulshada iyo warbaahinta Soomaalidu ay wax iska weydiiyaan taas oo markiiba soo dedejisay in khawaarijtu ay ku soo jeestaan warbaahinta isla markaana ay beegsadaan wariyaashii ugu horreeyey ee khawaarijta shirqool ku beegsadeen waxaa ka mid ah mahad axmed cilmi cali iimaan sharmaake oo madax ka wada ahaa idaacadihii hoonafriig iyo capital voice ee muqdisho intaasi wixii ka dambeeyey weerarada iyo ugaarsiga warbaahinta iyo wariyaashu waxay ahayd mid joogto ah iyadoo hadda la og yahay in ku dhowaad 100 wariye ay ku maqan yihiin gacanta cadowga khawaarijta ah tani waxay ahayd tallaabo kale oo khawaarijtu ay ku diidanaayeen in daaha looga qaado sida ay indhaha u tirayaan bulshada Soomaaliyeed warbixin sanadeedka tacadiyada ka dhaca Soomaaliya oo si joogto ah ay u soo saari jirtay hay'adda xuquuqul insaanka ee Dr. Ismaaciil Jimcaale oo aan helnay nuqul ka mid ah ayaa caddaynaya in sanadkii 2005 oo kaliya shirqoolle iyo weerarro gaadma ah lagu dilay dad ku dhow 700 oo Soomaali ah kuwaasoo isugu jiray dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed dhammaan ficilada khawaarijta waxa ay uga gol lahaayeen inay dadka Soomaaliyeed ku indhaqabtaan iyagoo aaminsanaa in aqoon-yahanka iyo indheergaradka haddii bulshada laga baabi'iyo inay soo harayaan dad caamo ah oo la xukumi karo
laakiin weli waxaa muuqda in khawaarijtu aysan ku guulaysan hadafkaasi dadka Soomaaliyeedna ay yihiin dad damiirkooda aysan ku qasbi karin in ay khawaarijtu addoommo u noqdaan in ka badan 25 sano kadib khawaarijtu waxay mar kale isku dayaysaa inay dadka Soomaaliyeed qaldaan iyagoo ismiskiinanaya ujeedkooduna yahay inay mar kale birta mariyaan dadka indhaha u ah bulshada laakiin waxaa hadda marqaati doonto ah in bulshada Soomaaliyeed ay ka feejigan yihiin dhagarta khawaarijta oo